wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay galab magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 36 wasiir taasoo ka badan tii sanadkii 2015 Trudeau ayaa golihiisa wasiirada si siman ugu qaybiyay ragga iyo dumarka isagoo magacaabay min 18 wasiir Axmed Xuseen oo Soomaali horeyna u ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ayaa markale nasiib u yeeshay inuu ka dhex muuqdo golaha wasiirada wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa magacaabista golaha wasiirada hadaba ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta maruu khadka telefoonka kula xiriiray ayuu gooreen weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay in ra'iisul wasaaraha uu soo dhiso dawlad aan haysanin codad aqlabiyada iyagoo aanan wax tanaasula ama aan raadi wax taxalufa la sameeynin xisbiyada kale dawladda uu soo dhisay Trudeau waa dawlad u eg aqlabiyada ma haysto oo 170 kursi baa looga baahnaa baarlamaanka inuu helo 157 kaliya ayuu helay laakiin waxa markaa la islahaa maadaama uu dawladda horsocda yahay xisbigan liberaalka dawladda horsocda u dhiso malaha wuxuu ku soo dari doonaa dad kamida xisbiyada horsocodka kale ee NDP-da iyo xisbiga Green Party-ga loo yaqaan ama cagaarka loo yaqaano laakiin muu yeelin arintaas wana arin laga garaabi karo oo waxa uu yeeli way waxa ugu badan tahay hadii uu ku soo dari lahaa dadkaas xisbiyadaas oo looga xisbiyadaas inay necab yihiin saliidan laga miiro ciida oil sands kala dhado oo laga soo saaro gobolada Alberta laga soo saaro iyo waliba Saskatchewan goboladaasina ay yihiin kuwa aad u caroonaya hadda ma garanaysa uu kursi kaliya aanu ka helin ninka la yiraahdo Justin Trudeau marka wuxuu ka baqay inay si caroodaan oo xisbiyadan NDP iyo Green ku wax isku day doonaan inay joojiyaan soo saarka saliida laga soo saaro ciida laga miiro in isku daro marka sidaa daraadeed wuxuu doortay inuu arinta ku bedelo inuu magacaabo wasiirada badiyo oo 34 ka ahaayeen oo ka dhiga hadda 36 oo ku soo daro bal qaar kale oo uu talagalay inuu xudxuto goboladaas Alberta iyo Saskatchewan iyo dadka kale ee qoyar socodka ay caroonaya bal inuu magaranaysa ku bedelo marka taas uu yeel waayay Christy Freeland wasiirkii hore arrimaha dibadda waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka gobolada maxay tani ka dhigan tahay inanta waa runta Christy Freeland oo ahayd gabadh aad iyo aad ugu soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo wada hadaladii ay la yeelatay Mareykanka ee lagu cusboonaysiinayay heshiiskii baacmisharka ee naafta la yiraahdo North America oo dhan ka dhaxeeya oo ay ku guuleysatay oo aad ugu soo caan baxday oo laga soo doorto runtii gobolka Ontario oo meesha guusha xoog gal oo ka helay ahayd ayuu haddana imika wuxuu ka dhigay ku xigeenkiisa ayuu ka dhigay isla markaa wuxuu magacaabay inay noqoto magaranaysa wasiirka xiriirka gobolyaasha sababtuna waxa weeyaan gabadhu waxay u dhalatay gobolkan Alberta ee aan joogo oo gobolada aad u caroonaya ah nin beeraley ayaa dhalay marka way fahamsan tahay waxyaalaha meelaha laga gali karo gobolada Alberta iyo Saskatchewan bay fahamsan tahay marka wuxuu isleeyahay gabadhaasi bilay qaboojisay ma garanaysaa arinta Alberta iyo Saskatchewan ka dhaxaysa isla markaana bal waraysan karta oo dibeetana ula iman karta isagoo kula soo noqon karta oran karta meelaha kan wax ka bedel oran doonta hadii la yiraahdo dhanka Soomaalida waxay isku ku hayeen Axmed Xuseen wasiirkii hore ee socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga hadda waxa laga dhigay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada bal ka waran midaas Axmed Xuseen waa runta oo wasaaradii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkii Canada soo gali jiray ee soo galeetiga ahaa uu kordhiyay dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaska loo keenay runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay wayna u dhuntin wasaaraddaasi ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclayn inuu wasaaradda joogo oo aan rajeynayna bal inuu ku daayo oo kartidiisa hadii loo eego ay ku fiicnayd haddana lama yaabin in laga bedelo meesha sababtu waxa weeyaan dad badan oo aan horsocod ahayn oo qoyar socda ayaan ku faraxsanayn oo ku kacsanaa soo galootiga uu kordhiyay ilaa 50,000 ugu yaraan sanadkii ku kordhiyay ku kacsanaa in kasoo dawladdu ay raali ka ahayd laakiin daarinta wasiirka wasaaradda looga dhigay Axmed ee hadda lagu soo wareejiyay Soomaalida wali waa u dan weeyaan
oo runtii de waxa laga dhigay wasaaradda qoyska iyo dhalinyarada ayaa laga dhigay Soomaaliduna waa dad danyara intooda badan kuwa Kanada jooga oo u baahan dawladdu wali inay meel badan ka taageerto waliba dhibaato kalena way jirtay oo caruurta ayaa Soomaalida runtii aad looga qaataa caruurta laga qaadaya dhibaato badan bay keentaa sababta ay uga qaadaan dadku waxay fahamsaneen dhaqanka Soomaalida ayaan fahamsaneen marka wasiir dhaqankii fahamsanadu meesha yimaado waa laga yara gabanay oo dadka wax ka qaado khayr gabanayaan markay isaga gaadhana de uu fahmayaa hadii la yiraahdo si fiican ayuu wax uga qaban baan isleeyahay wataa professor ugu dambeyntii sidee bay dawladdan Trudeau ku ansixin doontaa sharciyada ay rabto inay dhaqan geliso maadaama aysan haysan codad aqlabiyada oo ay ku marsiiso qorshayaasha ay damacsan tahay in markaa ay ansixiso wixii la doona laba arrimood labadaba yeeli doonaa ومركو هرية أمورها هرصعدك سida مثلا cimiladan kululaatay oo kale wax ka qabadkeeda kordhinta soo galootiga arrimaha kale bulshada waxaas wuxuu ka taageersan doonaa oo ka taageer ka raadsan doonaa xisbiyada horsocodka NDP-da iyo Green Party-ga loo yaqaano ayuu ka raadsan doonaa oo iyaga ku fiican arrimaha la xiriira dhaqaalaha ama batroolka sida kuwa beesa soo saaro kale ama dhuumaha batroolka qaada ama beeraha xataa qolada qoyar socodka ayuu ka raadsan doonaa taageero marka waxaan isleeyahay hadduu labadaas isku miisaamo waxaan isleeyahay ilaa ugu yaraan 2 sano wuu gaari doonaa dawladdiisu wixii ka dambeeyay lama hubo